guddiga heer qaran ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu u xil saaray in xuska maalinta qaran ee 18 May ay u dajiyaan guud ahaan qorshe faa'iido iyo diilan nololeed u noqon kara shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabteen qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland waxa ay ku soo bandhigeen qorshe cad oo bani'aadanimo ay noqon doonto maalin qof kasta oo qarankan u dhashay uu hor Ilaahay ula baxo sadaqo ifi aakhiraba anfacda guddigan oo ah guddi guntigiijiis oo loogu talagalay samata bixinta dadka dhibaatooyinka ballaaran ee ay ka soo gaareen abaarihii ka dhacay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ku hawlan sidii dadkaasi ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatooyinkaasi ayaa waxa ay ka kooban yihiin xisbiyada qaranka xukuumadda ururada bulshada sida Sonsaf Nagaad culimo awdiinta dalka iyo guud ahaanba ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier waxaana ay tilmaameen guddigani in guud ahaanba maalintaasi qaran ee 18 May ay noqon doonto maalin shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo dareero sidii uu dadkaasi u caawin lahaa isla markaana uu soo xareyn lahaa dhaqaale dhan 10 milyan oo dollarka Mareykanka wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil oo labadooduba ka tirsan guddigaasi soo kabashada dhibaatooyinka abaarahu ay dalka ku saameeyeen ayaa waxa ay shacabka ka dalbadeen in gurmadka la laban laabo inta u dhaxaysa labada maalmood ee qarankani leeyahay waa xuska 18 May iyo xuska 26 Juun oo ka soo jeeda sanadkii 1960 xilligaasi oo gobonimada aynu ka qaadanay dalkii Ingiriiska guddidan hawshoodu waxay ku geedaaman tahay oo madaxweynuhu uu xil saaray inay ka taliyaan ama ka soo fikiraan sidii dadka ay abaaruhu saameeyeen ee barakacay maxaan ku dhahday looga hawlgeli lahaa sidii loo kabi lahaa haday xoolo tahay dib loogu xooleyn lahaa haday tahay beero looga sameyn lahaa haday tahay seero sidii seero looga maxaan ku dhahday looga fikiri lahaa baadka iyo daaqa xoolaheenu ku dhisan yihiin sidii seerahooda loo sugi lahaa iyo haday tahay sidii biyaha Ilaahay uu ugu nimcaystay ee ballaaran ee qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta maraysa aynaan kana faa'iideysaneen badda gelaysa sidii aynu u qaban lahayn oo aanay biyo dambe oo Ilaahayna siiyay aan maxaan ku dhahday aanay badda intooda badan inaga gelinay sidii aynu u daryeeli lahayn biyaha ee aanu u qaban lahayn aan maxaan ku dhahday aanu ka fikirno maxaan ku dhahday sidii aanu sameyn lahayn runtii guddidanu waa guddi ka kooban sida arkaysaan maxaan ku dhahday dawladda ama xukuumadda iyo axsaabta wadaniga ee mucaaradka ama maxaan ku raadayay axsaabta qaranka iyo ururada bulshada rayidka ah haday tahay Sonsaf haday tahay haweenkii haday tahay culimo awdiinkii iyo ganacsatada ururta ganacsiga ay matalayso iyo maxaan ku raadayay qaybaha kala duwan ee Soomaaliland dhammaan waxa la isugu tagay in la sameeyo qaabkii iyo muxuu ahaayay dhaqaale ururin ku xadaysan muddo 45 maalmood oo 18 May ilaa iyo 26 Juun laga ururiyay bulshadeena dabadii gudo haday tahay maxaan ku raadayay qurba jooga iyo haday tahay qolqol jooga inta la isugu tago oo dabeetana la rays gareeyo ama la ururiyo lacag 10 milyan ku dhow xubno kamid ah guddigan oo iyaguna si xeel dheer xaaladda jirta iyo duruufta dalka taala ka warqaba ayaa waxa ay ku dheeraadeen isla markaana ay shacabka Soomaaliland ka codsadeen in loo midoobo xuska 18 May sidii taakulada loo baahan yahay guud ahaanba looga dhabayn lahaa runtii mawduuca anaga aan doonayno inaan focus gareeno ama loogu yeeraba waxa weeyaan warwaynu isku tashanay shalay isku tashanay markii abaartu in haysayno baaba'sanayn ee dadkeenu barakacayeen xoolahoodu baaba'ayeen war isku tashanay laakiin waxa taala cabsi ka badan tii mid lamid ah ayaa taala dadkii barakacay iyo kuwii xoolahoodu dhamaadeen waxa weeyaan haddaan dib loo xoolayn oo la dijinin oo aan waxba loo qorsheynin maxaa dhici kara waxa dhici karta boqolaal kun oo shacbigaas oo masaakiin inay dib u soo galaan magaalooyinka dabadeedna xaaladdeena amniga xaaladdeena shaqo la'aanta xaaladdeena noloshuba dhammaan ay culays badan ku yimaado inay noloshii miyuga naga baaba'do si hadda taas u dhacdo waxaan leenahay
walaalaha dalkeena ah ee aynu gacanta la galnay markaanu guddiga abaaraha ka shaqaynaynay ee wallahi wax keena warnimada maanta ka sii daranta hawshan ka soo kabashada abaartu ummaduhu markay dhibtu ku dhacdo dadna dad baa u kaca oo dhibtaas ilaahay la kaashada oo ka nabadgeliya ama wax ka qabta ummaduna waxay weydaa cid ka soo u qabata ayay weydaa dabeedna dhibtay la socotaa abaartan inagu dhacday inka 120 sano jiray wuxuu sheegay inaanu isna arag maqalna abaar saas oo kala abaartu runtii iyo dadkan barakacaya laba arrimood baa ugu muhiimsan daraasado badan oo runtii la sameeyay oo dadkii ku shaqada lahaa ay sameeyeen abaarta laba shay baa asal u ah dadku inay dhaqaaqaan waa biyo yaraan iyo baad la'aan dhulkii oo xaalufay iyo biyo aan jirin waa labada dadka dhaqaajinaysa labadaana waxa laga gaashaaman karaa in ku talagal laga sameeyo xilliga aanay abaaruhu jirin waa mashruuc dheer runtii halkan waxa laga sheegay qiimaha ku baxay mashruuca oo dhan 10 milyan runtii lacag yar maaha laakiin hawsha laga hortagaya mar walba hadana ka baaxad weyn qoys kasta oo Soomaaliland ka tirsan way taabatay way saameysay si toos ah iyo si dadbanba way u saameysay intii ay sida tooska ah u saameysay yaa waa taa weyn ognahay waxa way wadadkeenii xoolo ku noolka ahaa oo maanta aan xoolahoodii iyo maartay xataa ilaa nafina baxday qaali ay nafana baxeen marka waxa weeye waxa loo baahan yahay inaynu inagu isku tashano oo aynu isu gurmano oo aynu dadkeenii maartay sidaas ay u gaadhay dhibaatada inta la eg inagoon cid kale wax ka sugaynin bal horta ay siday uga soo kabtaan maanta halka ay taagan yihiin ay maartay madaxa uga soo qaadaan aynu wax ugu qabano wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa isaguna difaacay xuska 18 May waxaana uu xusay in aan haba yaraatee hoos loo dhigin maalintaasi qaranku leeyahay hase yeeshee haddii laga tagi waayo guud ahaanba la qurxiyay maadaama oo loogu gurmanayo dadkii ay abaaruhu waxyeeleeyeen bulshada marka duruufo badan ay hafiyaan waxa waajib ku ah in ay ka dabaashaan oo maskax iyo qorshe la yimaadaan ay kaga gudbaan hogaamiyaha ummadaasna xilka ugu weyn baa saaran inuu marka ummadiisa ku jiheeyo qorshaha ay kaga bixi lahaayeen Soomaaliland waa hogaamiyihii qaranka ummadoo dhan waa madaxweynihii ay doorteen isaga u madax u hogaamiye koox iyo qayb gaara iyo xisbi gaara madaxweynuhu ma aha bulshadoo dhan buu u yahay muxuu ahaayay hogaamiye isagoo taa ka duulaya mas'uuliyadiisaas waxa uu qiimeeyay wuxuu arkay markaa munaasabadii qarankan ee weyneyd ee ummaddu ay cabiri jirtay dareenkeeda ee ay dabaaldegi jirtay ee ay ku midoobi jirtay in maanta ay ka mudan tahay in mashruucaasi kale loo bedela maalintii qarannimada lama yarayn lama baksin 18 May waa maalin qarannimada ummadan waa maalintii qarankan madax banaanidiisa la soo noqday waa maalin ku weyn taariikhda iyo qulubta dadkana ku xardhan waxaase laga maarmaan madaxweynuhu arkay markuu la tashaday dad fara badan oo waxgarada oo qarankan kamid ah in muxuu ahaayay maanta aanay mudnayn bulsho baahida faraha badan hayso inaan buqaanbo aanu la gudboonayn ee ay la gudboon tahay inay isu gargaaraan inay isu damqadaan in muxuu ahaayay aynu caadifadii iyo xamaasadii 45 cisho adduunka soo gala 26 Juun oo maalintii xorriyadda ummadani qaadatay ee hore 1960kii ayaa u dambeyn doonta 27 waxa la yeelin doonaa hantidii soo hoyatay muddada qaabka qaaraan ururintu wuxuu noqon doonaa qaab aad iyo aad bulshada loogu soo bandhigo oo saameeyo ilaa aqal u saameeyo waxa hawlgeli doona ilaa iyo 1000 dhalinyaro oo mutadawiciina oo sameyn doona street collections suuqa wax ka guraya aqalada garaacay dhowr campaign maalmaha 18 iyo 19 bisha
maalmaheenii qaranka waxaynu dhammaan mashquul ku noqon doonaa inaynu qaadhaan ururino inamada dhalinyaradaasi hablaha iyo wiilashaahi waxay xidhnaan doonaan calaamado lagu yaqaano lacagta waxaa la soo dhejin doonaa nidaamka loo xeraynayo saad iyo dahab account iyo muxuu ahaa baananka oo account laga furo guddidani waa guddi ka kooban noocyada bulshada kala duwan mashruucaasina wuxuu soconayaa 45 guddigan soo kabashada ama base ka hortagista abaaraha ayaa waxay u muuqdaan guddi abaabulan oo guud ahaanba ay ka go'an tahay sidii ay ummadda u wacyigelin lahaayeen isla markaana ay garab iyo gaashaanba uga heli lahaayeen waa Cabdi Sataar Sabri iyo Cabdilaahi Cali Suudi TV-ga qaranka Hargeysa.